mar kale iyo barnaamijkeena sheekooyinka jacaylka. sheekada maanta waa sheeko aad u xiiso badan oo muddo dheer socon doonta. sheekada magaceeda waxaa la yidhaahdaa xishoodka hablaha iyo xanuunka jacaylka. sheekada waxaa qoray cabdiraxmaan maxamed guul. waa mar kaleeta iyo sheekadeenni xiisaha badnayd ee xishoodka hablaha iyo xanuunka jacaylka oo qaybteedii 12aad inoo baraysay Selma oo hodan kula kulantay suuqa isla markaana weydiisay ina ay Subeer taqaano. bal haddaba aynu u gudagalno qaybtii 12aad ee sheekada iyo jawaabtii ay hodan bixisay iyo wixii halkaa ka dhacayba. hodan hadalkaba umay badin ee waxay ku tiri haa waan aqaanaaye ee maxaad uga baahnayd. Selma way ilowsan tahay in meeshu dariiq tahay, gaariga ay ka soo degtayna daaqadiisu furan tahay. waxaa u muuqda oo keliya muuqaalka hodan oo ay ka dhex arkayso Subeer. intaa kadib ayay hodan ku tidhi walaal, laba dumara ayaynu nahay, meeshuna waa waddo, hadalkuna inuu inaga taagnaado maaha ee waxa aan kaa codsanayaa in aad si yar oo kooban iigu sheegto waxaad iiga baahan tahay, dabadeedna aan iska dhaqaaqo. iyada gabadhii Selma ahayd way isbedeshay, waxaanay ku tidhi waxaynaan u ballamaynba ayuu ilaahay keenay, maxaa lagaa siiyaa Subeer? haddana intii aanay jawaabin hodan ayay ku tidhi iga raali ahaa walaal, maan doonaynin inaan halkan kugu weydiiyo, laakiinse arrinkan aan ku leeyahay oo dhammi waa arrin khuseeya inankaasi. hodan waa qof daacad ah, sidaan hore u sheegnayna iska degan oo aan ahayn qof u dhashay hadalka dhaadheer. inta badan rag iyo dumarkay la hadlaysaba hoos ayay uga foorarsataa, mana jecla kelmadaha ka soo baxaya afkeeda in ay dadku maqlaan. waxay ugu halcelisay walaalay Subeer waan aqaanaa, isaga oo keliyana ma aqaanee ilaa xaafadooda oo dhan baan aqaanaa. maxaadse ii weydiisay su'aasha? adigu ma Subeer baa ku qabaa mise boolis baa tahay? hadalkiibaa ka xumaaday Selma, waanay xanaaqday. inankii darawalka ahaa ayaa gaadhiga ka soo degay, iskuna dayey inuu dejiyo Selma waxay ku doodaysaa siday hodan ii tidhaahdaa ma askariyadii Subeer baa tahay mise wuu ku qabaa. hodanna waxay leedahay weligood bay laba qof oo dhallinyaradii isbaran jireen ee waa maxay gabadhani waxa ay iga doonaysaa? su'aal bay i weydiisay, waanan uga jawaabay, waxaanan filayay inay iska dhaqaaqdo. haddase waxaa ii muuqda in wixii wax ka weyni meesha ka socdaan. hadda ogow hodan ilaa wakhtigan may weydiinin qofka ay tahay iyo magaceeda. waxayse dareensan tahay inay tahay gabadhii uu uga sheekaynaya Subeer. ixtiraam badan oo ay u hayso Subeer ayay diidan tahay inuu hadalkoodu kor u baxo, tan kalese ma oga. intaasi markii ay dhacday ayaa wiilkii darawalka ahaa ku yidhi hodan walaal, waxaan u malaynayaa in labadiina wax la idiin kala sheegay. ma habboon tahay in aad isdejisaan oo aad isqaboojisaan, wakhtina ballantaan si aydaan iskugu dhicin. Selma ayaa soo booday, waxaanay tidhi noocan oo kale lama ballamo, anigu agjoogga aan ag joogo ayaa ku khasaara. intaa markii ay tidhi hodan wax dambe oo hadal ah may soo celin, laakiin xaggii waddadu ka xigtay ayay iskaga dhaqaaqday, dibna umay soo eegin. waxaa isku soo hadhay wiilkii iyo Selma. aad ayaanu ula yaaban yahay darawalku dulqaadka inanta aanu garanaynin iyo gabadha sarkaaladda u ah kibirkeeda, wuxuuna hoosta ka yidhi labadaba ilaahay baa wada samaystay. sidii baanay Selmi xafiiska ugu noqotay, halka hodanna ay timid xaafadoodii. hodan ma aha qofka darro badan oo dhacdhac badan ama jecel in ay dadka gardaraysato, waase dadka aan laga garbixin ee aan qaadanin gefka. muddadii ay dhexda soo socotay ilmo ayaa ku taagneed indhaheeda. markii ay guriga soo gashay ayay oohin bilowday intay qolkeedii hoosta ka soo xidhatay. waxay ku canaananaysaa nafteeda, ma naag baa maanta adiga oo magaalada dhex jooga kuugu hanjabtay oo waxay doontay intay ku tidhi aad aayar iskaga soo dhaqaaqday. haddana waxay eegaysaa wanaagga iyo sharafta u dhaxaysa iyada iyo Subeer.
waxay ooydaba goor dambe ayay cadha burburtay waxayna la hadashay subeer oo ay u sheegtay waxa ku dhacay iyo sida yeeshay subeer kuma oga Salma salfudeedka intaa leeg iyo inay sida ciyaala suuqinta intay wadada istaagto ku dhex caayso gabadh aanay wax allaale wax ka dhaxeeya aanu jirin subeer wuxuu ku yidhi Hodan iska dulqaado imikana suuqa ayaan jooga galabta ayaanan kula soo hadlayaa marka aan soo tooso adiguna wax dambe oo hadali yaanu ka gaadhin gabadhaas Hodan waxay u sheegtay Subeer inaanay markeedii horeba la hadlin hadeerna aanay diyaarba u ahayn Subeer gurigii buu ku soo noqday maydhasho iyo qada kadib wuxuu dul fadhiistay telefoonka si uu ula hadlo Salma inkastoo ballantoodu ahayd inaanu la soo hadlin ilaa inta uu gabadha hor keenayo ee uu ka oranayo waatan oo waxba nagama dhaxeeyaan Subeer garaac telefoonkii Salmina way ka qabatay waxaanu weydiiyey halka ay joogto iyadoo istiidsiinaysa ayay ku tiri waxaan joogaa xaafadda laakiin sidii awal hore ula hadli jirtay ulama hadlin wuxuu ka codsaday maadaama uu mobilku lacag yahay inuu ka soo garaaci karo line-ka oo ay ka qabato waana ka ogolaatay markii uu bilaabay hadalka ayuu weydiiyey su'aashii u horeysay oo ah ma dhacday arrintaas sidaas ah Salma wax kale kumay jawaabin waxaanay tiri way dhacday waana dhacaysaa weligeedna way dhici doontaa weliba dhagar baan geli doonaa haddii aanad adigu xaajada dhankaaga ka dhammayn Subeer yaab ayuu ilaahay u keenay wuxuuna ku yidhi walaal maxay tahay waxa idinka dhaxeeya adiga iyo Hodan Salma waxay ugu jawaabtay haddaan Subeer u isyeelyeelaynin waad ogtahay oo waa adiga inta aan noolahayna ma ogolaan doono in gabadha agtayda iyo dunida guudkeedaba kula taltallaabsato haddaad ka bixi weydo arrimaha aad ku jirtana adiga ayaa ka sheekayn doona waqtigan warku wuu dhaafay Hodan hanjabaadu xataa isagii bay saamaysay Subeer inkastoo markii hore aad u caraysnaa haddana markii dambe markuu ogaaday waxay waxan oo dhan u samaynaysaa inay tahay jacayl ay u qabto ayuu ku yidhi waxa ayaan daraa ceeb waxa inoogu filan dadkuna inagula yaabayaan cid waliba ku sheekaysanaysaa in maanta sheekadeenu magaalada si xun u dhex qaaday isla markaana markay xaaladuhu halkan marayaan waxa habboon in la dejiyo arrimaha wax walbana loo qaado sidii ay ku dhammaan lahaayeen mid waa midda hore marna kaamaan filin arrimaha aad ku kacday midina waa talabaade mar haddaad inacday oo aad igu tiri iga tag maxaa kuu geeyey gabadha islaameed ayaan darrada inteeda leeg foolxumada joogtada ah ceebta aan kaa harin taariikh xumada miyaanad midnaba ka yahyaqsoonin Salmaay run ayaan kuu sheegayaa waad iga qaadan weyday halkii uun baanan anigu taaganahay laakiin uma dul qaadanayo inaad inantaa mar labaad ku gifto oo aad aflagaado iyo ay suuqa ula istaagto way awoodi karaysay inay waxay doonto ku tiraahdo laakiin sida la ii sheegay way kaa roonaatay mutacallimad baad tahay waddan shisheeye ayaad in badan ku nooleed dhaqanka iyo nolosha ayaad garanaysaa jacaylka rabitaanka doonitaanka damaca iyo si kasta oo la isku raadsado adaa uga dhow Hodan waase nasiib darro inaad ku kacdo fal aanay ku kicin hablaha yaryar ee da'doodu ka hooseyso 15 jirka ma hadlayso Salme inta uu hadalka wado si fiicanna ayay u dhageysanaysaa waxaanu ku yidhi garaadka aqoonta ilbaxnimada iyo tadawarku waa in ay waxyaabo badan ku dhaafiyaan waa inaad ka horeyn kartaa qof aan gaarin isagu heerka haddaad se adigu sida noqoto maxaan kula hadlayaa hablaha kale ee waaye aragnimo ilbaxnimo dumarnimo ama aan reernimo soo marin Salma in badan markii ay aamusnayd ogaatayna inay aad u khaldan tahay ayay ku tiri horta marka si loo eego waa khalad inaan gabadha doonto dhanka kale marka aan ka eego si uma arko anigu dambi aan galay waxaad moodaa waqtiga in ay ka soo daadegtay arrinkii kulaa caradii iyo ciilkii ay u qabtay Subeer iyo Hodan oo ay garawsatay in ay gif samaysay Salma marnaba afkeeda kamay odhan raali gelin baan bixinayaa
laakiin waxay ku celcelinaysay gabadhaasi haddii nolosheeda doonayso waa in aanay ku iman mar dambe. Subeer ayaa hadalkii qaatay, waxaanu yidhi, adduunyadu dhib badanaa, admiguna noocyo badanaa, wakhtiguna xasuus iyo xanuun iyo kul badanaa. maalinba maalin baad moodaa inay sii eryayso. uma adkaysanayo inay suuqa ii soo gasho 2 dumar ah ayaa isku haysta. maantana adiga ayaa gardaran. waxaan ku cafiyo ama aan inantii ku raaligeliyana iimaa tusin. waxaad weli la soo taagan tahay inaad waxyeelo u geysan doonto. arrimahaasina ma aha kuwo dhaqan, hiddo iyo isir aynu u leenahay. anigu dadna kulama jecli. shaydaanka iska naar, dadka iska daa. waxaan ku khakhaayirayaa ee kolba dhinac iska kaa tusaya, kuguna leh ninkii Subeer, naag kale ayuu kaa raacay. ka bax, ku fakir sidii aynu u noqon lahayn reer dhisma. anigu talada aan ku siinaya waa midda. tu kalena ogowo, waxaan maqlay in aad u baxayso safar dibadda ah. muddada u qaadanayna ma garan karayo. markaa sidee kula tahay in aynu hawlaheenna u socodsiino? Salmi intay cabbaar qosashay ayay ku tiri, sidaad ku ogaatay safarkayga iyo afaarahayga? ismaan lahayn. Subeer baa hawl aad leedahay ama waxa aad ku sugan tahay kaa daba iman doona. waa runtaa oo waxaan tegayaa bisha soo socota 15keeda. waxaanan maqnaanayaa 8 bilood oo aan soo qaadanayo kooras ah public administration. waxaana laga yaabaa in bishan aynu ku jirno la diyaariyo safarkayga maadaama ay bishu tahay dabayaaqo. Subeer ayaa yidhi, oo Salmaay, sahal weeye adduunyadu. qofka aan samrin wax waliba wuu soo maraa. soo maad ogeyn inaan adiga ku sugayay. soo maad ogeyn sawdka aad tiraahdo inuu sad ii ahaa. soo maad ogeyn su'aal kastoo aad weydiiso sida aan kaaga qancin jiray. mase hilmaamsan tahay wanaaggii iyo wixii aan soo qabtay oo dhan. walaal ma garan karo waxaan kugu masaalo halkaad igaga taalo iyo halka aad isdhigtay. aad bay u kala durugsan yihiin. xilligan aan joogno waxay dantu igu khasbaysaa inaan raadsado qof aan la qaybsan karo nolosha. intaydii horena aan ka soo qaado samir. waxba igumaad samaynin, waana fiicanahay. soo jeedaa, caafimaad qabaa, cunaya oo cabbaya, welibana cararaya. cid kastana ha tidhaahdo maxaa ku dhacay jacaylkii dhexdeena. waxaanse kuu sheegayaa waxaanan weligay kuu sheegin, kaasoo ah in laga bilaabo caawa aan ka noqday ama aan joojiyey sii waditaanka jacaylkeennii. aniga oo eegaya jidka aadka u jiribka badan, jeexjeexyada iyo meelaha sida xun aynu u jibaaxayno, hadhowna jahawareer inagaga imanayo. adduunyadu maanta maaha, berrina maaha. intii bilis xaawilay la xanaanayn jiray, intii inan la xurmayn jiray, intii jacayl la adkayn jiray, intii culays qof u adkaysan karayay, waxaan u malaynayaa inaan dusha u soo riday. maanta xaaladdu waxay igu maraysaa wax aanan yeeli karin. markaa walaal Salmaay, iska jooji, sidaasna igaga raali noqon. Salma waxay hadal ku bilowday, waxaan hore u ogaa ayuunbaad hadeerna ii sheegtay. waa la ii sheegay ama waan garanayay soo noqodkayga inaad qalbiga ii dhisaysay. daahna igama saarnayn in aanad marnaba guursanaynin gabadh carmala. hase ahaatee markii hore waxaad ahayd inan wanaagsan, qalbi fiican, qurux badan, qaaliya oo qof lagu doorsadaa jirin. masiibadu waxay tahay ama murugadu timid markaan ogaaday inaad tahay laba wajiile aan hadalkiisu marnaba wacad gelin. dareenkaygu wuxuu i siinayay mar walba sidii aan kuu soo jiidan lahaa. wayse igu adkaatay, waa la iga guulaystay, waanan ku khasaaray. anigu muddadii ugu dambaysay inaan si wanaagsan kuu salaamo mooyaane wax niyada kuuma haynin. haddaan ku hayana ma tageen safarka 8 bilood ah ee waxaan ku odhan lahaa ka hor ayaynu aqal galno. Subeerow, baan kugu ogeyn, kugumaanan baran sida dadka qaar laba wajiilaynta. shaw meesha ay ka timidba ama cidday ka soo bilaabantayba waa adiga. u tur hablihiina, waxaan uga socdaa hansi gabadheed. sida aad hore u sheegtay, hawl aad u yar ma aha. halka aad maanta maraysaana waa halkii dadku isku dili jireen. dhicise mayso inaannu isdilno aniga iyo gabadh kale.
waxaanse ballan kuu qaadayaa inaan faraha kaa qaado oo aan kuu daayo qofka aad jeceshahay mar haddii xaalkaagu taagan yahay waxaad tahay ciyaalad suuqad. Subeer intuu waxoogaa qosol dhoola caddayn ah sameeyey ayuu ugu halceliyey, waxa aad dembi isaarayso haddii aan in uun kaga jiro wax uun bay noqon lahayd. inanta aad igu tuhmaysana waxaan dhaar kuugu marayaa in aan waxba naga dhaxayn, laakiin hadda aan iyada iyo qaar kale oo badanba u bilaabi doono una furayo qalbigayga. ilaahay baana og ciddii ku guulaysan lahayd hanashada iyo kasbashada noloshayda. Salma ismaan lahayn xaalad noocaas ah adigaa kaga tegi mooyaane iyadaa kugu eedayn doonta. waase wax soo baxaya in aan sii murannana oo aan waan sameeyey iyo maan samayn isku celcelino. waxay inagu tahay ceeb waanan qaatay. imika laga bilaabana hodan igu ogow inay buuxisay booskii adigoo aad bannaysay, waayo waxaa la yidhi qofkii samraa sidkiibuu helaa. waxaana ku xaqiiqsanayaa inantaasi inta jeer ay igu tidhi walaal iyadoo aanay waxba inaga dhaxayn ayay dadku u haystaan inaan ku jecelahay ama aad jeceshahay. waxaa kuu wanaagsaneed inaad u tagto hodan oo aad lacag ka qaadato ama aad ka iibiso jacaylka kulana baayactantid qiimo kaste. waxaad ogaan lahayd heerka ay iga taagan tahay iyo waxa aan anigu ugu jawaabay. laakiin qofna calaf aan loo qorin cunaha ma mariyo. ku daysayaa iyo ku doonatayaaba hodan waxay noqonaysaa xaaskaygii. Salma way ishayn karlaaday, waxa ayna hubsanaysaa hadalladii hore ee ay tidhi. ilmo ayaa indhaheeda ka da'aysa, oohin ayaanay hadli kareen, cabudh iyo naqaska oo qabtay ayaa iskugu darsamay. Subeerse haddii uu awal ka nixi jiray oo uu ka damqan jiray madax xanuunkeeda, wakhtigan wuxuu ku yidhi taleefanka iska dhig, iskana seexo, hana inoo ahaato wakhti aanad ooyin, waayo ma dhegaysan karo oohin aanan anigu eedayda lahayn. isa soo canaano, muraayadda isla tag, isu soo sheeg qofka aad tahay, kadibna ii kaalay adiga oo isug saxaaga iyo khaladkaaga. isagoo la hadlaya ayuu taleefanku soo dhacay. waana hodan qofka soo hadlaysa, kamana qarinayo. waxaanu ku yidhi hodanay khadka waxaa ku jirta Salma, arrinkii baanuna ka wada hadlaynaa, iska raali noqo, xaal la qaado, dhibna ha u arkin. gabadhaasina way ku raali gelinaysaa, adigana walaalnimadii inaga dhaxaysay waa sideedii. arrin yar oo soo kordhayna aniga ayaa kuu sheegi doona, mar dambe ayaynu taleefanka ka soo wada hadli doonaa. imika aan u dhammeeyo Salma waxay iga doonayso, inkastoo aanay walaal wanaagsanayn inaan kugu dhigo taleefanka ama cid kaa horraysiiyo, haddana wakhtiga ayaa cuslaynaya, igana raali ahow. hodan waa qof aad u dulqaad badan, waxaanay ku tidhi walaal waad mahadsan tahay, iguna salaan Salma, una sheeg inaanan wax xumaana u qabin. Salma way maqlaysaa hadalladan la isweydaarsanayo, waxaana micinsatay oo keliya oohin iyo naqaskii oo ku xidhmay. markay dhigtay hodan taleefankii ayay Salmi tidhi waxaan doonayaa inaan wax ku weydiisto, ma iga raali noqonaysaa oo ma ii oggolaanaysaa? isaga oo aan u jawaabin ayaa aabihii soo galay qolka. waxaanu ku yidhi waan kuu baahanahay, dibadda u soo yara bax. dabadeedna intuu taleefanka soo qaaday ayuu ku yidhi Salmaay heestan aan maalin dhaweed soo duubay, inkastoo ay wax badan isbedeleen, iska sii dhegayso inta aan la hadlaya aabbo. waxaana heesta midhahayga ka mid ahaa inkastoona waayadan wejigaaga imanoon waddadiina soo marin, walaacaagii kama tegin wadnaha jidhkaygoo sibaad iigu weyntay. markaad wada jidhkeenniiyo iyo weheshii diidaan, anna kale u weecdo wasiisi baan ku maqane. inaan weli ku jecelahay weydii dadkaba qaar. inkastoonan waaya wejigaaga nimaano waddadiinaan soo marin, walacaagii kama tagin wadnaha jidhkaygo sibaad iigu weyntay. markaad wada jidhkeeniyo iyo weheshii diidan, anna kali u weecdo wisiisi baan ku maqane. markaad wada jidhkeeniyo
saddex iyo labaatanaad ee sheekadan xiisaha badan ee xishoodka hablaha iyo xanuunka jacaylka. inaan weli ku jecelahay weydii dadkaba qaar inaan weli ku jecelahay weydii dadkaba qaar inaan weli ku jecelahay weydii dadkaba qaar